horumarka dalku waxa uu ku jiraa qoyska oo hagaaga. Hagaaga qoyskuna waxa uu ku jiraa lamaanaha oo aqoonta qoyska yeesha. Haddii ay lamaanuhu aqoonta qoyska yeeshaan, waxa ay soo saarayaan ubad tayo leh oo si wanaagsan loo barbaariyey oo kaalin kasta oo ay nolosha ka galaan sida ay tahay uga soo baxa, dabeetana horseeda horumarka dalka. jacaylku waa marka ay hal ruux isku noqdaan laba ruuxood oo kala jinsi ah oo ciyaarta kaliya ay laba qofba wada badiyaan oo ay mid walba waxa uu ku dadaalayaa sidoo qofka kale u raali gelin lahaa. jacaylku waa sida ruuxaanta oo kale, cid walba waa ay ka sheekaysaa balse waa ay yar tahay inta uu aragtay si dhab ah. jacaylku maaha ku soo boodo, balse waa mashruuc dhammaystiran oo ka bilaabma caqliga kuna dhamaada qalbiga. mar haddii aanu niri jacaylku waa mashruuc dhammaystiran oo ka bilaabma caqliga kuna dhamaada qalbiga, micnaheedu waxa weeyaan waxa uu shaygaas u baahan yahay aqoontiisa inta aan la gudagelin ka hor. mar haddii aanu niri jacaylku waa mashruuc dhammaystiran oo ka bilaabma caqliga kuna dhamaada qalbiga, waxaa muhiim ah in ay la yimaadaan dadku aqoonteeda inta aanay gudagelin howlgallo kabciliya kalgacalkooda iyo dareenkooda caatifadeed. anuu hadda ma aaminsani waxaan u haystaa inuu yahay caatifad dareen. waa arrin rabaaniya, aqoonteeduna diiniyan way u baahan tahay waa la bartaa. horta waa la qoray qoritaan in wax la qorinta ugu badan kulli wax waa laga qorqoray maalka mar walba wayna maqalaa waa waxaan dadka ay maskaxdiisa ugu buuxaba. waxaynu maraynaa xilli marka ay wiilka iyo gabadhu maanta isbartaan deetana ay caawa soo wada hadlaan, habeen dambena ay isku yidhaahdaan waan ku jecelahay iyo anaa kaa daran, habeenka kasii dambeeyana ay kala tagaan. waxaaba jacaylkii ku noqday kusoo booda sida durayga oo kale. waxaasoo dhan waxaa ugu wacan aqoonyarida ay kaga sugan yihiin jacaylka iyo qaybihiisa kala duwan iyo sida ay tahay in loola mucaamaloodo. bulshadeenu jacaylka ma doontaan, balse waxay jecel yihiin inuu qof walba jacaylku halkiisa ugu yimaado. waxay daawadeen filmo badan oo hindiya oo jacayla, waxay kaloo soo dhegaysteen heeso badan oo cishqiya, waxay kaloo soo akhristeen amaba ay meelo kale ka soo maqleen sheekooyin badan oo ka sheekaynaya wiil iyo gabadh isjeclaaday deetana jacaylkooda uu ku dhammaaday arrin wanaaga amaba arrin xumaana. deetana dadkii waxaa wadagelay gebigoodaba xiise jacayl. mid walba waxa uu ku dadaalay sidii uu dadka kale u soo jiidan lahaa. waxa uu mid walba soo bandhigay wanaagadiisa, haddii ay tahay xagga hablabiska, hadday tahay dabeecadda iyo hadday tahay xagga dhaqanka intaba. waxaa meesha ka baxay kaalintii ahayd inuu qof walba isagu jacaylka doonto oo uu qaybtiisa ka qayb qaato, waayo jacaylku waa dareen dhex mara laba qof oo kala duwan. haddii qofku intuu fadhiisto uu yidhaahdo aniga halkayga ha igu timaado waa mushkilad. waana sababta keentay guryo badan oo Soomaaliyeed inaanu gurigooda ku salaysnayn jacayl, waayo qof walba waxa uu doonayaa wiilka iyo gabadhu isqabaaba in sidiisa loo jeclaado. waxa wanaagsan in lagu jeclaado adiga. waxa wanaagsan horta qofka dumaray inaad ku jeclaato inuu qofka isaga jacaylku uu ka yimaado muhiim. jacaylku ku soo boodo ma aha, balse waqti ayuu qaataa. jacaylku isagu inama xukumo, balse innaga ayaa xukumi karna. qofku ma noqdo dhibano jacayl oo kalama kulmo khiyaamo, balse waa goorma waxa weeyaan waa marka uu qofku leeyahay aqoonta jacaylka. aqoonta jacaylku waa cilmi ballaadhan oo ay daraasad ku sameeyeen culimada cilmi nafsigu. ma aha mid aynu halkan kaga gayoon karno, balse waxaynu soo qaadan doonaa hal qodob oo aynu si fiican u kala dhigi doono. halkaa qodob oo ah marxaladaha uu jacaylku maro si uu qofku u ogaado in isagu jacaylka xakamayn karo, si aanu qofku u noqon dhibane jacayl oo aanu halkaa dhib kala kulmin, si guryaheennu ay u noqdaan guryo ku salaysan jacayl, kalgacal iyo naxariis intaba. haddii aad doonayso inaad jacaylka xakamayso, waxa aad marisaa 3 marxaladood. marxaladda koowaad waa marxaladda ka helista, marxaladda labaadina waa marxaladda isqiimaynta, marxaladda saddexaadina waa marxaladda la qabsiga. marxaladda koowaad waa marxaladda ka helista. marka uu wiilku gabadha arko amaba ay gabadhu wiilka aragto, haddii uu qalbigeeda hoos u yaro dhaco oo ay yaro naxdo amaba ay jiriirac yaro gasho, deetana mar kasta oo ay firaaqo hesho ay soo xasuusato, micnaheedu waxa weeye qofkaa inantaas way ka heshay ama qofkaas wiilkaasu inantaa waa uu ka helay. sidaa daraaddeed marka uu wiilku gabadha ka helo amaba marka ay gabadhu wiilka ka hesho, waxaa habboon su-aasha koowaad ee ay isweydiinayaan baynay tahay waa maxay sababta aad uga heshay. inta badan iska helistu waxay u dhacdaa un 2 arrimood. arrinta koowaad baahi ka dhigneed qofkan, dabeetana qofkaa kale ka helay, dabeetana markuu qofkaa kale uu isha qax ku siiyey uu dareemay isdhammaystir. arrinta labaadina waxa weeyaan isaga oo ku arkay qofkaa kale amaba ay ku aragtay ninka tilmaamo soo jiidasho leh sida habmuuqaalkiisa, dabeecaddiisa, habladhaqankiisa iyo hadalkiisa. marxaladani waxay socotaa saacad, sida oo kale waxay socotaa bil amaba waxay socotaa bil in ka badan. waxay ku xidhan tahay shakhsiyadda ama dabeecadda uu qofkaasi leeyahay. marxaladdan ka soo hadalnay waa marxaladdii koowaad ee ahayd ka helista. haddii aynu si kale u dhigno waa marxaladda xiisaha iyo isku xidhashada labada qalbi. horta marka jacayl la leeyahay wax ka weyn baa jiro oo la yidhaha kalgacayl. jacaylkuna ma aha in la isu ooyo oo la iska dul ooyo,
laakiin jacaylku waa naxariis, waa dulqaad, waa samir, waa isu tanaasul, waa wada tashi, waa mas-uuliyad, waa kala dambayn, waa ismaqal. laakiin jacaylka dad badani siday ka aaminsan yihiin jariska tuurnimo ma aha haa marka basar xumo dad baa aaminsan inuu jacaylku yahay jacaylka maanta waa fikir baa laga qaatay dhaqan xumada inta dhaqanka inta xun baa la yidhahdaa waa jacayl maanta weelayaa gabaadh bannaan isula baxaya waxaan diiniya sharci toona ogolayn samaynaya meelo maaragtay aan waxbaba maaragtay wax baneeya aanay jirin isla qabanaya hadalla xataa aan iska munaasib ahayn is odhanaya waa isjecelahay waa mushkiladda ugu badanay jirta deedna adadayg baaba dawo ka ahaa markaa raggii hore wuu adkaa aniga xagga hore kaga soo jawaabnayo nolosha adag baa adayga keenta laakiin mushkiladda waxay tahay haddana ha adkaada ninku gurigiisa uu ka adkaa mas-uuliyadiisana wuu ilaalin jiray laakiin jacaylka idabdarrada maanta waa arkaysaa barito maanta waan isjecel ay ku odhanaya bil kadibna iyagoo iscaayaya ad arkaysaa ma iyada iyo ma isaga maanta ama wi kadibba ha laakiin berigaa hore kalgacaylka iyo jacaylku uu iman jiray guurka kadib jacaylkana waxa ugu qiimo badan dee ka yimaada guurka dibadii kan hore basar xumo badan buu wataayo dee dhadigiiyo qofkii isu dhiibaya maaragta ayaa ninkiiba wuxuu doona iska samaynaya kaasina jacayl maaha waa idabdaraa loodhan marxaladda labaad waa marxaladda isqiimeynta marxaladdanu waa marxaladda isbaandhaynta iyo isashaadhaynta waa marxaladda ay tahay in labada qof ishaybaadhaan marka ay iska helaan kadib waxyaabaha layska baadhayaana waxa weeyaan waxyaabaha uu ku wanaagsan yahay waxyaabaha uu ku xun yahay dabeecadiisa tuu ku wanaagsan yahay tuu ku xun yahay ta loogu dulqaadan karo ta aan loogu dulqaadan karin qofka iyo qoyskiisu siday isku yihiin qofka iyo qaraabadiisu siday isku yihiin isaga iyo asxaabtiisa waa inaad qofkan gelisaa shaybaadh adag oo aad ku ogaan karto dhammaan dabeecadihiisa oo dhan oo aad ku ogaan karto waxyaabaha uu ku liito iyo waxyaabaha uu ku fiican yahay waayo waa qofka aad noloshaada la wadaagi doonto inta noloshaada ka hadhay waxaad arkaysaa mararka qaarkood wiil iyo gabadh iyaga oo ku jira marxaladda koowaad ee iska helista aan isa shaybaadhin dabeetana isguursaday hadhow markay guriga isugu tagaanna ay dhaliilo badani soo baxaan dabeetana waxaad arkaysaa mararka qaarkood wiilkii oo murugaysan ama gabadhii ooyeysa tusaale ahaan gabadha markaad weydiiso maxaa kugu dhacayna waxay odhanaysaa waa laga yaabaa ninku been ayuu sheegay oo haddii aad sii weydiiso su-aasha ahmiyaanaad ka ogeynna waxay odhanaysaa maya oo uu ii qariyey balse sida saxda ah umuu qarine iyada ayaan markii hore shaybaadh ku samayn sidaa daraaddeed waxaa la gudboon lamaanaha marka ay ku jiraan marxaladda koowaad ee ka helista in aanay la iman waxyaabaha kobciya jacaylkooda iyo caatifadooda haddii kale taas waxay ka indhatiraysaa dhaliilaha uu midba kan kali leeyahay oo hadhow marka uu ku soo baxo waxay ku noqon doontaa dhowr jab iyo niyad jab labadaba marka waxaa habboon in ay marxaladdan qaadato muddo badan si ay labadan qofi si qoto dheer iskula jaan qaadaan iskuna sii bartaan iskuna sii fahmaan marxaladda saddexaad waa marxaladda la qabsiga marka uu qofku ku soo agaado marxaladdii labaad qofkan kale dhaliilihiisa iyo waxyaabuhu ku fiican yihiin haddii marka aad qiimayso oo kuu soo baxo inuu qofkani ku habboon yahay inaad nolosha wada wadaagtaan waxaa habboon inaad ku qaadato dhaliilihiisa balse adigoo dhaliilaha qorshayaal ka dhiganaya waayo wanaagyadiisa ayaa ka badan dhaliilaha uu leeyahay tusaale ahaan haddii ninku yahay nin dulqaadka ku yaryahay balse inta kale ku wanaagsan yahay waxaa habboon inaad ninkaasiisa ku qaadato o aad ku raacdo balse dulqaad la-aantiisa aad ka yeelato qorshe ah in marka uu cadhoodo oo kale tusaale ahaan aad la timaado hababkii aad cadhaysa u dejin lahayd ama base hababkii aad uga baxsan lahayd dulqaad la-aantiisa sidaa daraaddeed waxaa habboon barbilowgaba marka uu wiilku gabadh ka helo ama gabadhooba ay wiil ka hesho inay ogaadaan oo is ogaadaan marxaladda oo mid walba kan kale kaga sugan yahay wallahi uma malaynayo inuu yahay dareen aan xakameyn karan inagu waa dareen si kadis ay noogu dhaca haddii qofka uu jacayl ku dhaco inta badan horta isagu isma xakameyn karo jacaylku waa dareen inagu aynu xakameyn karno ee ma aha dareen isagu ina xakameeya waana goormo markaynu inagu jacaylka xakamaynaynaa waa marka aynu jacaylka saddexdaa marxaladood marino waa marxaladda ka helista oo marxaladda koowaada marxaladda labaada oo ah marxaladda isqiimaynta iyo marxaladda saddexaad oo ah marxaladda la qabsiga